kulanti wacan u wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos idinka soo gudbinayno studio-hayga ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. daawadayaal sida wararka aad kula socoteen xafiiska qaramada midoobay u qabilsan xuquuqul insaanka ama xuquuqda aadmiga ayaa waxay soo saareen baaq waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in baaritaan degdeg ah loo sameeyo ama lagu sameeyo dadkii rayidka ahaa ee wax ku noqday magaalada Las Anood ee gobolka Sool oo saddexdii maalmood ee u dambeysay ay dagaal xoog leh ay halkaasi ka dhacayeen. waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in cadaaladda la horkeeno dadka iyagu ka dambeeyay arrimahaasi amaba gulufkaasi colaadeed ee ay dad badan ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen isla markaasina khasaare loo geystay magaaladaasi Las Anood. madaxa daba xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa baaq uu soo saaray waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo baaritaan dab ah oo madax bannaan oo dhexdhexaad ah sida uu sheegay waxaana uu yidhi waxaa baaritaankaasi uu ka saabsan yahay isku dhacyadii iyo dagaaladii ka dhacay magaalada Las Anood gudaheeda iyo duleedkeedaba oo ay dagaaladaasina u dhaxeeyeen ciidanka amniga ee Somaliland iyo qabaa'ilka halkaasi ama magaaladaasi dega. magaaladaasina waa magaalada Las Anood ee magaalo madaxda u ah gobolka Sool. baaqaasi madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku sheegay in baaritaan lagu kalsoonaan karo loo baahan yahay in markaasi laga soo saaro oo loo galo baaritaankaasi arrimihii dagaalada ee Las Anood iyo isku dhacyadii keenay khasaaraha ballaaran ee ay dad badani u geeriyoodeen isla markaasina qaar kale ay ku dhaawacmeen la dumiyena dhismayaal kuwa caafimaadka sida aan idhaahdo cisbitaalada oo kale iyo weliba meelo kale oo ay dad rayidi degan yihiin oo halkaasi ay ku dhinteen. waxaana loo baahan markaasi in la raadiyo oo la soo helo si cad dadka ka mas'uulka ahaa dhibaatooyinkaasi ka dhacay magaalada Las Anood laguna xisaabtamo oo markaasi la hor keeno maxkamad cadaalada oo markaasi ciqaabtii soo hor dhigta oo lagu qaado dambigii marka la cadeeyo ay ka galeen dadkaasi shacabka ah ee rayidka ah. magaalada Las Anood ayaa daawadayaal saddexdii maalmood u dambeysay waxaa ka socday dagaal xoog leh oo ciidamada amniga amaba Somaliland ay ku soo qaadeen weerar isla markaasina ay weerarkaasi ku ekeeyeen magaalada caasimadda u ah gobolka Sool ee Las Anood. iska hormaadkaasi oo ay iska caabinayeen koox lagu magacaabo SSC oo u dhashay gobolkaasi dhalinyarana u badan ayaa waxay keentay khasaare runtii aad u ballaaran iyadoo haatanna weli dagaalkaasi socdo. madaafiic iyo qoryaha hoobiyaha loo yaqaano ayaa lala beegsaday magaalada gudaheeda kuwaasi oo ciidamada Somaliland ay si kasa ay markaasi dadkii rayidka ah ula dhaceen. wararkaasi waxa ay sheegayaan in haweeney iyo 7 carruur oo ay dhashay in gurigii lagu dumiyay oo uu madfac ku habsaday. sidoo kale cisbitaalkii qura ee markaasi la geenayay dadka dhaawacyada ah ee lagu daweynayay ayaa isagana lala beegsaday oo madaafiicdaasi lala dhacay. guryo badan ayaa magaalada laga dumiyay waxaana magaalada gudaheeda ku dhintay dad badan oo rayid ah inkastoo aan weli lahaynin tirada dhabta ah ee labada dhinacba dagaalkaasi ku dhimatay. ciidamada SSC ayaa waxay iyagu sheegeen in ay iska caabiyeen ciidankaasi Somaliland oo ay dib u celiyeen dagaalkaasina uu weli socdo. Somaliland ayaa dhinaceeda ku tilmaantay dadkaasi iska caabinaya ee iska celinaya in ay yihiin dad argagixisa ah. sidoo kale iyaguna SSC ayaa iyaguna hadlay oo sheegay inay yihiin dadkii gobolkaasi u dhashay ee aanay haba yaraatee wax luga ku lahayn dad argagixiso loogu yeedho iyaguna ay yihiin waa ciidanka Somaliland argagixisada dhabta ah ee markaasi guryihii dadka shacabka ah ku diminaysa waa sida hadalka ay u dhigeen. dagaaladaasi ayaa inkasta oo waan iyo wada hadal ay dad badani ku baaqeen haddana weli ma muuqato in xabadii la joojiyay oo diyaar loo yahay in la is hor fadhiisto. haddaba baaqan qaramada midoobay ay ka soo saareen arrimahaasi dhinaca xuquuqul insaanka ee ay ku sheegeen
in maxkamad la horkeeni doono ciddii mas-uulka ka ahayd marka si fiican loo soo cadeeyo baaritaan madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo taasi oo markaasi keenaysa in maxkamad la horkeeno dadka mas-uuliyiinta ee howlahaasi ka dambeeyey ayaa waxay noqon doontaa arrin runtii aad u soo dadejisa in xabadda la joojiyo oo lasoo hor fadhiisto oo markaasi laga meereysto in dadkii maxkamadda la horkeeno oo dembiyadii farta laysku fooqo amaba la caddeeyo waana tallaabo muujinaysa in markaasi xoog la saaro in dagaaladaasi lasoo afjaro kadibna la xisaabtamo qaramada midoobey waxay u doodaysaa dadka rayidka ah ee masaakiinta ah ee aan waxba galabsan ee guryahoodii lagu dumiyey iyagiina la laayay iyagoo markaasi aan haba yaraatee hubaysnayn dagaalna ku jirin daawadayaal wararka ka soo cusbanaada qaramada midoobey qaybta u qaabilsan xuquuqul insaanka iyo qoraalada ay soo saaraan amaba baaqyada dib ayaanu idinla socodsiin doonaa haddii aanu nahay Somali American TV tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale ah inta aynu ku kulmi doonana inta ka horeysa waa Cali Xalaale oo dhamaantiin idinkaga tagay sidaa iyo nabad geliyo